madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo toddobaadkii tagay xilka la wareegay ayaa laga sugayaa magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. Inkastoo shakhsiga noqonaya ra'iisul wasaaraha cusub uu ku imaanayo hanaanka awood qaybsiga beelaha, haddana waxaa jira shakhsiyaad iyo dhinacyo kala duwan oo ku loolamaya kursigan. Madaxweyne Xasan Sheekh oo dawladdiisii hore ay isku dhaceen laba ra'iisul wasaare, kii saddexaadna ay isku qasbanaan ku wada dhameysteen, ayaa si weyn uga baaraandegaya shakhsiga uu magacaabayo xilkan maadaama uu ku jabay jidkii hore. waxa uu doonayaa inuu magacaabo shakhsi ay wada shaqayn karaan oo aragtidiisana ku hogaaminaya dalka. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo wax ka dhistay Xasan Sheekh ayay u badan tahay inaan loo magacaabin xilkan wasiirka koowaad. Waxaase laga talagelin doonaa shakhsiga xilka loo magacaabayo iyadoo ay suuragal tahay in la magacaabo shakhsi ay Xasan iyo Daniba heshiis ku yihiin. Warar aan ka helnay ila xoog ogaal ah ayaa sheegaya in 3 qof ay hadda isugu soo hareen tartankan loogu jiro xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. 3 magac ee hadda miiska saaran ayaa kala ah Nuur Diiriye, Cali Xaaji Warsame iyo Maxamed Keenan. Nuur Diiriye ayaa la sheegay inuu wato madaxweynaha Puntland, halka xubnaha kale ay taageero ka helayaan saaxiibada madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. dad ku dhow madaxtooyada oo aan la hadlay ayaa ii sheegay in sidoo kale xulashada ay qayb ka noqon karaan xubno horey u soo qabtay xilka ra'iisul wasaaraha ama wasiir, haddii aanay shakhsiyaadkan aan magacyadooda soo xusnay midkood uusan noqon ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Madaxweynaha iyo saaxiibadii oo qiimeynaya xubnaha xilalkan doonaya oo dhowr iyo 10 qof gaarayay ayaa qaadan doona go'aanka ugu dambeeya, iyaga oo tixgelin doona saaxiibadii garab istaagay doorashadii madaxweynaha maankana ku haya qorshahooda 4 sano. waxaa suuragal ah in shakhsiyaad cusub ay soo baxaan maadaama wararka qaar ay sheegayaan in madaxweyne Xasan Sheekh uusan dooneynin inuu degdeg u magacaabo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ka hor munaasabadiisa caleemasaarka.